South Africa ayaa in badan dadaal ugu jirtay sidii ay ku martigelin lahayd cayaaraha adduunka ay ka furmi doono bisha fooda inagu soo heesa 11keeda isla wadankan South Africa. sidoo kale muuqaalka wadankan South Africa gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa laga dareemayaa jawi isboorti iyadoo indhahaadu qabanayaan dad badan oo ku labisan dharka astaanta u ah cayaaraha sida fanaanadaha, jaakeedyada, calamada iyo kuwa kale. waxaa iyadana horumar la taaban kara ah in la diyaariyay garoomadii loogu talagalay in lagu qabto cayaarahaasi oo ay ka harsan tahay in ka yar 20 maalmood. Greenpoint Stadium waa mid ka mid ah garoomadii loogu talagalay in lagu qabto cayaaraha adduunka. garoonkani wuxuu ku yaalaa koonfurta magaalada Cape Town waxaana uu leeyahay ilaa iyo 70,000 oo kursi, iyadoo la filayo in ay ka qayb galaan daawashada cayaaraha dad badan oo Soomaali ah. waa kan Faarax Daahir Cilmi oo ka mid ah dadkaasi isagoo inooga warbixinayo dareenkiisa. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo dadka daawanaya koobka kubadda cagta adduunka oo ka dhacaya dalka Koonfur Afrika. waxaan daawan doonaa haddii la yiraahdo bisha soo socota 24keeda ciyaarta dhex mari doonta dalka Holland iyo Cameroon oo ka dhici doonta garoonka weyn ee stadium ka la yiraahdo Greenpoint oo ku yaala magaalada Cape Town. tikidkiina waa kan gacanta ayaan ku hayaa, waan soo goostay, waxaan nasiib u helay inaan helo saf dheer ayaan u galay. waxaana ka bixiyay qiimo gaaray ilaa 560 ran oo lacagta dalkan ah oo u dhigmata ilaa iyo $80. dhanka kale dhaqaaqyada isboortiga ee laga dareemayo wadankan waxaa ka mid ah goobaha lagu iibiyo qalabka cayaaraha oo si aad ah loo soo camiray, iyadoo qiimaha qalabkaasi uu sare u sii kacay halka sanadkii hore la iibinayay fanaanada loo yaqaano maaliyadda in ka yar $50 halka haatan uu qiimaheedu marayo in ka badan $150. sidoo kale waxaa si buuxda u diyaar garoobay ciidamada booliska iyo kuwa militariga oo si wadajir ah u sugi doono amniga wadanka oo dhan, iyadoo lagu xusuusan karo fantaasiyihii ballaarnaa ay dhowaantan ka sameeyeen magaalada Johannesburg. Cabdikariim Mursal Faarax, Universal TV, Cape Town.